Dhegdheer waagii ay inanta ahayd way qurux badneed qaf samir badan oo waalidkeed u dhaganugul bay ahayd. Dhalinyarada ay isku filka yihiin way jeclaan jireen sheekadeeda iyo haasaawaheeda wiilal iyo gabdhaba. Gabdhuhu waxay ku dayan jireen Dhegdheer wanaageeda halka wiilasha ay u bogi jireen la sheekaysigeeda. Habeenkii markii ay xooluhu soo hoydaan dhalinyarada waxay dhegaysan jireen sheekooyin la yaabka leh ee Dhegdheer u sheegi jirtay. Dhegdheer waxay ka dhalatay qoys sabool oo reer miyi ah. Iyaduna ilmaha keli ah ee waalidkeed bay ahayd. Gabar qurux badan bay noqotay markay kortay rag badan baana weydiistay adowgeed in ay guursadaan gabadhiisa. Adowgeed wuxuu Dhegdheer ku daray nin xoolo yarad badan ka bixiyey. Balse ninkaas wuxuu ahaa nin camal xun oo dhib ahayd si loo qanciyo. Dhegdheer ma aysan rabin in loo guuriyo ninkaas balse markii uu bixiyey xoolo badan oo aabbaheed ka saaray caydhnimadii way ogolaatay in ninkaas loo guuriyo. Markii ay guri gashay Dhegdheer waxa ay isku dayday in ninkeeda ay u noqoto naag wanaagsan si ay u hesho kalsoonidiisa. Waayo kadib Dhegdheer gabar qurux badan bay dhashay. Ninkii kuma farxin arrinkaas maxaa yeelay sida ragga reer miyiga caado u ah waxay jeclaayeen in uu wiil u dhasho kaas oo la wareegi lahaa maamulka reerka markii uu odayga duqoobo ama geeriyoodo. Kadib abaar xun baa ka dhacday dalkii oo roob ma dayn sanooyin badan. Xoolihii way xaalufeen sidaa awgeed dad badan baa gaajo iyo macluul u dhammaaday. Dadkii ka badbaaday abaartana dalkii bay ka qaxeen oo dhul dheer bay nolol u raadsadeen. Isbeddel yaab leh baa ku dhacay Dhegdheer oo waxay ka niyad jabtay in ay cunto oon xalaal ah. Dharaartii oo dhan waxay iska wareegi jirtay keymaha cidlada ah fiidkiina reerka ayay ku soo noqon jirtay. Ninkeeda wuu garan waayey waxa naagtiisa ku dhacay wuuna la yaabay caadada ay la timid. Galabtii dambe marka ay guriga ku soo noqotay buu weydiiyey. Maxaa kugu dhacay? Reerka inooma dhaqdid baryahan dambe maxaad duurka u wareegaysaa keligaa oo ka samaysaa? Kama ay jawaabin weydiintiisa waxayna ogaatay inuu ka shaki qabay kabaha cusub ee la timid. Habeenkaas goor saqdii dhexe ah bay bud dheer oo af badan soo qaadatay oo ninkeedii oo hurda dhegta dhiiga u dartay. Ninka hilbihiisa qaar cawadaas bay cuntay qaarna way karsatay. Naagtii Dhegdheer halkaas bay ku dad qalatowday.